waadan bari baraha bulshada waxaa qabsaday qadarkeeyo kadib markii uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka muuqaal asagoo la quraan saarayo fanaanka u muuqdo in uu xanuunsanayo dad badan ka fil celiyeen waxay dhaheen fanaanka waa la sixray qofka sixrana waa xaaskiisa meel kale yaa la geeyay what kadib markii uu live soo galay si xaaskiisa waxay isku dayay dadka inay qanciyaan ay dhahaan fanaanku waa xanuunsan yahay laakiin lama sixrin camal alxamdulillah caafimaad tamaan qaba waxaan rajeynaa inta xanuun ka ugu dhacay ama xanuunkii ahaayay kala xanuun la mid ah oo hayay inuu ilaahay ka dul qaado wax kalena ma aan qofka bini'aadanka isagoo miirkiisa joogin haddii facal shaydaan loo adeegsado taas wax qurux badan ma aha dad badan marka ka fil celiyeen waxay dhaheen fanaanka hada ishiisa fiirinay ama si yacni muuqaalkiisa fiirinay wuxuu ogyahay fanaan xanuunsan oo ama la sixray ishana marka qaar qofka laga dareemayo waxba kale si kale u ekaana qofka marka fanaanka u duceeyay inta u duceey lahaydeen inaad yacni jaftiin oo baraha bulshada usoo fadhiisteen laakiin usoo gashiin oo haddana xaaskiisa iyo asaga isku dirtiin ma fiicno insha allah waxaan rajaynaynaa inuu caafimaado haddaa rabti inaad dhegaysatiin qiso cajiib ah oo wiil Soomaaliyeed ku dhacday soo daawada TikTok-gan wiilkan wuxuu soo geliyaa maalin kasta qayb yacni sida loo sixray asagoo xataa sixirka laga saarayo soo geliy أنا واحد يعني السلام عليكم الحمد لله حالتي هذا أوكي واي مشاش كجونا شيخي مروكان كنا إيمان دونا دن أرمي أنا قاعد الحمد لله لما يولسيت dadka sixreen meesha ay kala joogaan sida loo sixir waa qiso cajiib ah asagoo faamilkiisa u dhisan yahay laga burburiyay la sixray nolol kale ku noolaa asaga dhan hadda noloshii ka soo baxay wuxuu bilaabay dadka inuu sheekeeyo uu wacyi geliyo markay ka faa'iideysta barnaamijkaas aad oo soo daawada haddii aragtay inaad ogaatiin waxa sixirku yahay sidoo kale sixirka waxa u daawo ah qofka inuu salaadiisa oo ka tagin markasta adoo salaada ku dhoorantaa seexo salaad tuko salaad waa muhiim dadka badan way dhigaysan ay iska baashaala wax hard samee laakiin salaad waa wax ugu muhiimsan wax kasta way ka xijaabay marka salaada badi habeenkii ka seexanaysid markasta adoo weyse qab iska seexo